السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idin la wadaagayaa saaxiibayaal qiso diini ah oo aad iyo aad u xanuun badan dhacdayna xilliga rasuulka sallallahu alayhi wasallam. halkani waa janaalka Cabdi Yuusuf official. fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalkan subscribe saar mahadsanid. waxaa la yiri waqtigii rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaa jiray wiil dhalinyaro ah oo la yiraahdo Calqama. waxa uu ahaa mid aad iyo aad uga dadaala daacada Ilaahay, salaada, soonka iyo sadaqada. wuu jiraday, waxaa aad iyo aad u adkaatay jiradiisa. xaaskiisa ayaa waxay u tagtay rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxayna ku tiri rasuulkii Allah, ninkaygii Calqama waa uu jiran yahay, waxaan doonayaa inaan ku ogeysiiyo. rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu diray Cammaar, Suhayb iyo Bilaal. waxa uuna yiri u taga oo shahaadada u qabta. way aadeen, waxay u meeriyeen tawxiidka laa ilaaha illa Allah muhammadur rasuulullah sallallahu alayhi wasallam. carabkiisu ma awoodin inuu dhaho. waxay u xidireen rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyagoo u sheegaya inuusan carabkiisu karin shahaadada. wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam labadiisa waalid mid ma nool yahay. waxay dhaheen rasuulkii Allah, hooyada ah ayaa dhashay. kolkaas ayuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam yiri hooyada ha leegu yeero kuna dhaha hadaad u tagi karto rasuulka ayaa ku baahan, haddii kale gurigaaga joog ilaa uu kaaga yimaado. uu u tagay wuuna u sheegay akhbaartii rasuulka sallallahu alayhi wasallam. waxayna tiri nafteeda naftiisa waan ku furanayaa, anigaa mudan inaan u tago rasuulka sallallahu alayhi wasallam. way cuskatay oo waxay ku istaagtay ul. waxay u timid rasuulka sallallahu alayhi wasallam, way salaantay, wuuna ka qaaday salaanta. wuxuu ku yiri hooyadii Calqama, run ii sheeg, haddaad been ii sheegtid waxay baa Allah xaggiisa ka imaanaya. sidee buu ahaan jiray xaalka wiilkaaga Calqama? waxay ku tiri hooyadii rasuulkii Allah wuu salaad badnaa, wuuna soom badnaa, wuuna sadaqo badnaa. kadib rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku yiri waa sidee xaalkaaga adigu? waxay ku tiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam waan ka careysanahay isaga. kolkaas buu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam sabab? waxay ku tiri xaaskiisu buu dhankeeda u badnaa, wuuna i caasin jiray. rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri carada hooyada Calqama ayaa ka dawooshay carabkiisa ashahaadateynka. kadib waxa uu yiri Bilaal, soco oo ii keen xaawo badan. kolkaas ayay tiri hooyada Calqama, rasuulkii Allah maxaad ku sameynaysaa xaawada? wuxuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam hortaada ayaan ku gubayaa. waxay tiri rasuulkii Allah, qalbigayga ma awoodo inaad wiilkayga ku gubto aniga hortayda. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waxaa ka daran cadaabta Alle. haddii aad rabtid inuu Ilaahay ka raali noqdo, adiga ka raali noqo. ilaahayga nafteyda ay gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartay, waxba tari mayso salaadiisa, soonkiisa iyo sadaqadiisa haddii aad adiga ka careysan tahay. waxay tiri ummu Calqama, rasuulkii Allah, waxaa marag ka ahay Ilaahay sareeyay, malaa'igtiisa iyo muslimiinta. waxa jooga halkan inaan raali ka ahay wiilkayga Calqama. intaas kadib rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri Bilaal, u tag oo soo fiiri inuu awoodo shahaadada iyo in kale. waxaa suurtagal ah inay hooyada Calqama dhashay ay qalbigeeda waxaan ku jirin ii sheegtay oo ay iga xishootay aniga. Bilaal wuu u tagay, waxa uuna maqlay Calqama oo ku dhawaaqaya tawxiidka laa ilaaha illa Allah. Bilaal wuu soo laabtay, waxa uuna yiri carada hooyadiisa ay ka carootay ayaa carabkiisa u diiday inuu ashaato. raali markay ka noqotana waa kaas dhahay. intaas kadib wuu dhintay. isla markiina waxaa yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam, waxa uuna amray in la dhaqo oo la karfano. kadib wuu ku tukaday, wuuna ka qayb galay aaskiisa. kadib buu yiri qabrigiisa agtiisa asagoo taagan muhaajiriin iyo ansaar, qofkii ka fadila xaaskiisa hooyadiisa, macnaha qofkii xaaskiisa ka weyneeyay hooyadiisa, waxaa korkiisa ahaatay naclada Ilaahay iyo malaa'igta tan dadka dhammaan. Ilaahay ka aqbali maayo wax yar oo wanaaga ilaa uu toobad keeno. Allah hooyo adduun iyo aakhiraba dambigeeda dhaaf. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.